qoyska jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan oo la shaaciyay arrin ay ku farxeen. Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo ah Maryan Adan Xaaji. Nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Halkan aad naga daawanayso waa Deeqsame. Hay-adda la dagaalanka maandooriyaha ee dalka Hindiya ayaa wax dambi ah ku weysay wiil uu dhalay jilaaga weyn ee Bollywoodka ee Shah Rukh Khan. Aryan Khan oo 24 sano jir ah ayaa la xiray bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2021 isagoo lagu eedeeyay in uu sitay daroogo xilli uu xaflad ku sugnaa. Aryan waxaa xiray xafiiska xakamaynta maandooriyaha ee NCB iyadoo loo cuskaday sharciyada la xiriira haysashada, isticmaalka iyo iibinta daroogooyinka sharci darrada ah. Jimcihii maanta ayay hay-addu ku weysay dhammaan eedeymihii loo haystay, iyaga oo yidhi wax daroogo ah lagama helin gacanta Aryan Khan. Maanta, wakaaladda waxay soo bandhigtay warqadda dacwadda ay ku qoran yihiin magacyada 14 eedeysane. Magacyada 6 qof oo uu ku jiro Aryan laguma darin liiska, iyadoo la sheegay in aanan lahayn caddayn ku filan. Aryan Khan oo ahaa markii oo kiiskani dhacay 23 sano jir wiilka uu dhalay xiddiga Bollywoodka Shah Rukh Khan ayaa la xiray 2 bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii lagu eedeeyay in uu sitay daroogo xilli uu ku sugnaa goob xaflad ah. Aryan Khan ayaa markii uu xabsiga ku jiray 3 toddobaad lagu sii daayay damaanad, isla markaana tan iyo xilligaasi waxaa socday dacwadiisa. Kiiska daroogada ee Aryan Khan ayaa laga soo dejiyay markab dalxiis oo ka yimid Mumbai oo ah magaalada ay qoyskiisu ku nool yihiin, waxa uuna xilligaas ku sii jeeday goobta loo dalxiis tego ee lagu magacaabo Goa. Xafiiska xakamaynta maandooriyaha NCB oo xiray isaga iyo dhowr qof oo kale ayaa sheegay in lagu xiray arrimo kala xiriira isticmaalka iyo iibinta waxyaabo sharci darrada ah. Falanqeeyayaasha ayaa xilligaasi sheegay, iyada oo ku salaysan waraaqaha qabashada Aryan Khan, in arrinta eedda daroogada ay u badan tahay in caddaymaha loo hayo ay tahay mid aad u yar oo aysan jirin sabab lagu sii hayo xabsiga. Qareenkiisa Satish Manshinde ayaa si adag u beeniyay eedeymaha loo soo jeediyey intii ay maxkamaddu socotay. Qaabkii ay warbaahinta u tabiyeen 2 bishii Oktoobar ee sanadkii 2021, qaar ka mid ah telefishinada ayaa tebinayay dhibaatada qoyska Khan. Waxaa la sawiray oo la duubay isaga oo ay booliisku wadaan gudaha iyo bannaanka dhismayaasha. Waxaa sidoo kale xilligaasi sawirada wiilka Shah Rukh Khan aad loogu baahiyey baraha bulshada, halka ay dad badan iskula wadaageen WhatsApp-ka. Xiritaanka Aryan Khan ayaa mid ka mid ah wariyaasha waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa burbur weyn oo ka dhacay xaflad rafe, halka mid kale uu dalbaday in la joojiyo xiriirka ka dhexeeya Bollywood iyo daroogada. Xaddiga wiilka u dhalay xiddiga Bollywoodka Shah Rukh Khan ayaa ahaa midka ugu sarreeya wararka dalkaasi Hindiya. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli lagtaada, channelkeenana ku soo biir, waadna ku mahadsan tahay tixgelintada. Waa wax agtada ka fudud, anagana wax weyn noo taraysa.